dhammaan agaasimaha hawlaha guud injineerka wadooyinka iyo bahda saxaafadda gudidii soo qaban qaabisay wadada aynu maanta taaganahay ee aynu maanta xadhiga ka jarayno inay suurto geliyaan gudidaasoo aad mahadnaq fiican leh dhammaan horta marka hore waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu marka u horeyso horta ilaahay baa mahad marka xigta waxa mahad naqis kale gudida qabanqaabada keentay ee haweenka ay haweenweynaha xaafadda 26 Juun tiriig ay gudoomiyaha u tahay iyo haweenweynaha kale u dhagalugulaaday inay fikirkan ay keentay la suurto geliyaan oo maanta midhadhalkeedu uu yahay wadada ay maanta taaganay waxa yar ay ka dhiman yihiin waxa yarna aan xagga dambe ka tilmaami doono inta yara ka dhiman oo ka codsanaya dumarku inay dhameystiraan inta yara ka dhiman marka shirkadii xashiiska ee ka hawl qaadatay inay iyadoo sibirka ku caawiso iyana waan mahadnaqayaa xildhibaan Ilyas oo isaguna sibirkii keenay isla oo xildhibaankii xaafadda laga soo doortay ee loo dhaariyay inuu wax u qaban doono inuu waajibaadkiisii ka soo baxay isaguna isna waan uga mahad celinay haddaba waxa wadadan maanta ka dhiman ayaana haweenweynaha isku tashaday ee ku fikiray ee ka suurto geliyay wadadii wada dhagaxeed ee islaamu ku fikirayeen iyo odayaashu inay maanta sidaa ka dhigeen inta yara ka dhimanna inay maanta ku darsadaan wax badan ma waxa weeye waa 4 lowdoo jeeya walaada qorta waa 4 lowdoo jeeya sida injineerka wadooyinka uu inoo calaamadiyay iyo 7 xabadood daamira wadadaasi dabeedna waxay noqonaysaa wada mustaqbal leh wada biyuhu aanay naga jarjarin imika waxa laga yaabaa daadka u horeeya inuu naga qaadano haddaba si aanay nooga qaadin oo ay mustaqbal u ahaato oo ubadkeenu ay waayeen ku gaaraan oo ay aayaan oo ay u maraan sida ugu nabad galaan 7 midhood daamira iyo 4 low oo jeeya ayaa naga dhiman intaana waxaan ka codsanayaa sida tii horeba ugu tashateen haweenweynow ina u tashataan soo urursaan wax badan ma waa wax yar intaan aynu ku dhameystirno annaguna aan diyaar idin lanahay ka dawlad hoose ahaan injineerkii agaasimihii gaadiidka iyo lixdaadka inoo hayay wuu ag taagan yahay aniguna gudoomiyihii degmadaan ahay oo waxaan diyaar u ahay meel kasta oo baahi dadweyne ay ka timaadayna markiiba taagnaado wixii la qaban karayaan idin qabanno diyaar baanu idin nahay inaan cagafyada iyo wixii ay u baahantaan baysiino idinkuna taasaan ka codsanayaa imarkana waxaan xariga ka jaraynaa wadadii in la isticmaalo bismillaahi raxmaani raxiim ilaahu noo barakee amiin